maalin wanaagsan saaxiibada ku xiran barteenna YouTube ee Galka Media iyo sidoo kale barteenna Facebook ee Galka Media waxaan maanta warbixinteenna Galka Media diiradda ku saari doonaa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo toddobaadka soo socda bilaabaysa dhageysiga kiiska Ikraan Tahliil. Haddaba waa kuma dadka markaasi loo yeeri doono oo kiiskan loo haysto madhaba in Fahad Yaasiin uu dadkaasi ka soo hormuuqan doono maxaa kala socotaa qorshaha ugu dambeeya ee Rooble u wado kaalin intee in leeg ayuu ra'iisul wasaaruhu ku leeyahay kiiskan dhageysiga maxkamadda. Waxaan idiin soo gudbin doonaa xogtii ugu dambeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa xilligan ay diyaarinayso madhaba in dhinacyo badan oo xilligan markaa ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ka soo muuqan doonaan, balse inta aan u gudagelin xogahaasi oo faahfaahsan marka hore barteenna YouTube ee Galka Media rukumo, sidoo kale like iyo follow dhe page-keenna Facebook ee Galka Media, muuqaalkana like garee una sii share garee saaxiibadaada kale. Waa tahay haddii aan ku hormaro xogo soo baxaya oo ay helayso Galka Media ayaa sheegaya in toddobaadka soo socda ay bilaaban doonto dhageysiga dacwadda ee markaa kiiska Ikraan Tahliil, waxaana markaa xoguhu ay tilmaamayaan in ay maxkamadda horteeda ka soo hormuuqan doonaan 3 saraakiil oo waaweyn oo nisa hoggaankeedu hayay muddooyinkii aynu ka soo gudubnay, kuwaas oo xilligan qayb ka mid ah uu Rooble xilka qaadis ku sameeyey. Saraakiisha aan xogta ku helnay ayaa waxa qayb ka ah agaasimihii hay-adda nisa ee shaqo joojinta lagu sameeyey Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Cabdullaahi Kulanajiis oo horey xilka qaadis ugu sameeyey Rooble, iyo sidoo kale Yaasiin Farey oo farmaajo xilligan ugu magacaaban taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo si ku meel gaar ah xilkaasi loogu dhiibay, balse xogtu waxa ay sheegaysaa in xilligan maxkamaddu ay diyaarisay caddaymo iyo marag furayaal hortooda maxkamadda ka horqiraya inay xubnahan ka dambeeyeen kiiska Ikraan Tahliil. Xogta aynu sidoo kale helayno ayaa waxa ay tilmaamaysaa in guud ahaanba maxkamadda xilligan ay u diyaarsan yihiin waxyaabaha aan markaa soo sheegnay guud ahaan marka laga tago, iyadoo ay soconayaan xilligan abaabulkii ugu dambeeyey ee dhinacyadaasi maxkamadda lagu horkeen lahaa. Inta badan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaa la dhigay ciidamo daacad u ahi xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble, kuwaas oo durbaba iyagu markaasi bilaabi doona inay markaa la socdaan dhaqdhaqaaqyada saraakiisha ciidanka ee markaa qalabka sida, gaar ahaan kuwa nabad sugidda oo xilligan si weyn loogu tuhmayo inay ka dambeeyaan kiiska Ikraan Tahliil. Waxaana xogtu ay tilmaamaysaa in hooyada dhashay ee Ikraan Qaali Maxamuud Guhaad ay diyaarisay caddaymo iyo codod ay sheegtay saraakiishii soo wacayay inta aan markaasi la waayin Ikraan. Xogtii ugu dambeysay aynu helayno ayaa waxa ay sheegaysaa in markaa warkan maxkamadda ku saabsan ee dhageysiga toddobaadka dambe dacwadda kiiska Ikraan Tahliil ay ka dambeysay kadib markii ra'iisul wasaare Rooble xalay si adag uga jawaabay warqad markaa habeen ka hor ka soo baxday xafiiska madaxweyne Farmaajo, taas oo markaa lagu soo bandhigay guddi ka shaqaynaya kiiska Ikraan Tahliil. 3 maalin oo qura ayaa ka harsan sida uu horey markaa u shaaciyey agaasimihii nisa ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo isagu sheegay in markaa 18 uu warbixin ka horjeedin doono dhinacyada, waxaana arrinta 18 ka shaaciyey madaxweyne Farmaajo oo isagu xilligan u muuqda mid markaa Fahad Yaasiin ka difaacaya kiiskan fadeexadda iyo dadka Soomaaliyeed la yaabka ku noqotay ee uu xilligan dhex fadhiyo. Waxyaabihii ugu dambeeyey ee inta badan markaa soo baxayay ayaa waxa qayb ka ah in xogo laga helay xafiiskii uu ku shaqaynayay taliyihii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo la aaminsan yahay in arrintan xilligan isaga iyo weliba madaxweyne Farmaajo ay ku soo biyo shubatay. Xogta dhinacyada kale ay tilmaamayaan xilligan waxaa qayb ka ah in xafiisyada muhiimka ahaa ee xarunta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka guud ahaanba markaasi la xiray, halkaana la dhigay ciidamo daacad u ahi ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo isagu xilligan ay ka go'an tahay sidii ehelka Ikraan ay u heli lahaayeen cadaaladda, kuwa ka dambeeyay dilka Ikraanna
loo horkeen lahaa miiska markaa inta badan sharciga lagu kala qaado si waxyaabaha sharciga uu soo saaro lagu fuliyo. waxaana markaa xogtu ay tilmaamaysaa in dhinacyada maxkamadda ciidamada qalabka sida ra'iisul wasaaruhu uu duldhigay amar culus oo ku saabsan in guud ahaanba ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada saraakiisha ciidamada kala duwan ee dowladda federaalk ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa nabad sugidda ayaa xilligan la soo warinayaa in si toosa u dhaqdhaqaaqooda ula soconayaan maxkamadda. waxaana toddobaadka dambe si toosa maxkamadda horteeda loo horkeeni doonaa dhinacyada arrintan markaasi dacwadeeda laga gudbiyey. haddaba markaynu dul istaagno Fahad Yaasiin Xaaji Daahir miyuu hortegi doonaa maxkamadda sida ay xogo tilmaamayaan? Fahad oo xilligan markaasi dhuumalaysi ku jooga magaalada Muqdisho waxay xogtu tilmaamaysaa in guud ahaanba qorshahan uu aad uga biyadiisan yahay isaga oo xilligan boor isku qaris samaynaya. ayay xogtu tilmaamaysaa in guud ahaanba uu diyaarsaday ciidamo isaga daacad u ahi. waxaana arrinkaasi ka dhalan karta haddii ciidamo loo diro Fahad Yaasiin gacan ka hadal, taas oo sababi karta in magaalada Muqdisho uu ka dhaco dagaal dhiig uu ku daato. madaxweynaha muddaxileedkiisa uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa laga soo xigtay inuu xilligan si weyna uga hor imaanayo qorshaha uu wado ra'iisul wasaare Roble. waxaana xogtu ay tilmaamaysaa keliya inuu doonayo in xarunta hay-adda markaasi aan la geyn Bashiir Goobe, taas oo haddii uu tago ay dhici karto in halkaasi laga helo caddaymo muujinayo in hay-adda ay markaa ku maqan tahay gacanta Ikraan oo markaa la soo warinayo, taas oo ugu dambayntii dhinacyo badan oo ay xaqiijinayaan in hay-adda markaa uu ku caddaanayo kiiska dilka ee lagula kacay Ikraan Tahliil. sida ay xogaha tilmaamayaan, Roble ayaanan marnaba markaa gorgortan ka gelayn kiiskan Ikraan, waxaana la soo wariyey in dhinacyo badan oo uu Fahad ka mid yahay xitaa ay ku yidhaahdeen lacagta aad doonayso sheego balse kiiskan isaga har. balse ra'iisul wasaare Roble waa uu diiday inuu kiiskan ka haro, waxaana uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed oo uu ka ballan qaaday inay Ikraan heli doonto cadaaladda, balse taasi uu sheegay inuu xilligan gadanayn qayimka iyo sharafka uu ku dhex leeyahay bulshada sida ay xoguhu tilmaamayaan. ra'iisul wasaare Roble ayaa guud ahaanba kiiskan u arka mid markaasi sumcaddiisa ee dhinaca markaasi siyaasadeed kor u qaadi karta, waxaana uu ku helay taageeradii ugu badneed oo shacabka Soomaaliyeed ahi, iyadoona xilligan madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dul hoganayaan su'aalo waaweyn oo ku saabsan muxuu la difaacayaa saaxiibkii Fahad Yaasiin. xilka qaadis marka lagu sameeyo Fahad muxuu xilal kale ugu magacaabaa? inta badan Fahad Yaasiin oo la aaminsan yahay 4 sano aynu ka soo gudubnay in dalka uu ka galay dembiyo waaweyn, ayaa xilligan waxa la soo warinayaa guud ahaanba in markaa ay soo wajahday cabsidii ugu dambaysay oo iga imaanayso dhinacyada markaa isaga sida weyn uga soo horjeeda. xubnaha siyaasiyiinta ayaa dhankooda ra'iisul wasaare Roble waxa ay kula talinayaan inuusan marnaba ka harin kiiskan, iyadoona saacadihii aynu ka soo gudubnay ay soo baxayeen siyaasiyiin uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ay ra'iisul wasaaraha kala hadlayaan sidii maxkamadda loo horgeyn lahaa dadkii ku lugto lahaa kiiska dilka ee Ikraan Tahliil, iyadoona xogtu ay tilmaamayso in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame si weyn uu xilligan ugu ololeynayo sidii Fahad loo soo taagi lahaa maxkamadda, isaga iyo weliba ragga kale ee ka hooseeya oo uu ka mid yahay Cabdullaahi Kulane Jiis ayaa la soo wariyey in isaga oo markaa doonayo inuu ka baxsado garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho, halka ay ku qabteen ciidamo daacad u ahi ra'iisul wasaare Roble, balse xogtu waxa ay tilmaamaysaa inuu magaalada Muqdisho ku sugan yahay isaga oo doonaya inuu u baxsado dhanka iyo weliba caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa. xogta ayaa xilligan sidoo kale waxa ay tilmaamaysaa in ra'iisul wasaare Roble xilligan qorshayaal gaaraya ilaa iyo 3 jiho ay u diyaarsan yihiin, kaas oo loo marayo dariiqa saxda ahi ee cadaalad u helidda kiiska Ikraan Tahliil. haddaba daawade, maxay kula tahay xilligan? halkee ayuu ku dhammaan karaa kiiska Ikraan? ehelada Ikraan miyay noqon karaan kuwa cadaalad hela?
fikirkaaga qaybta hoose ee kommentiga nagula wadaag warbixintanna u sii sheergaray saaxiibadaada kale mar kale waxaan idinka codsanaynaa asxaabteenna in aad rukumataan barteenna YouTube ee galka media muuqaalkana aad like saartaan warbixintanna u sii sheergaraysaan saaxiibadiinna kale mahadsanidin